Somaliland maamul in ka badan 30 sano raadinaya ictiraaf geed gaaban iyo geed dheer u fuulay hadda waxa uu qaaday tallaabadii ugu xumeed abid tan iyo intii uu bilaabay raadinta riyada ay adag tahay suurtagalnimada ee aqoonsiga ictiraafkii la baadigoobayay 30 sano miyaa laga dhacarkay tarxiilka iyo barakicinta danyarta ku nool deegaanada uu sheegto maamulkan qaab caankee ayuu doonayaa inuu uga dhaadhiciyo dunida inteeda kale in ay mareen habraacii saxda ah ee dimuqraadinimada kol haddii uu doonayo aqoonsi caalami ah silcinta bahdilka iyo maxaad u hadashay waa meesha ay maanta ku dambeyso geyga Soomaalida guud ahaan geeska Afrika magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa laga soo masaafuriyay dad Soomaaliyeed oo halkaasi ku noolaa ceeb iyo afqabsi ayay u soo jeedeen kuwii lahaa go'aankaasi maamulka madax bannaan sheegtay ee Somaliland miskiinta iyo maatada lagu soo gardarooday ayaa dib u dejin lagu sameeyay deegaanada Puntland ee Soomaaliya caruur waayeel iyo haween iyo kuwa xanuunsanayo ayaa ka mid ahaayeen kuwii la soo tarxiilay waxa ayna ahayd wax aan weligeed la maqal lana arag waxaan maqli jiray ceeb looma dhinto Somaliland waxa loo kala dayaa qaab qabiil ceebta guud ahaan ee maamulka haysata marka laga yimaado waxa ay si gaar ah u dul heebaabaysaa beesha degto ee gobolka Sool ee deegaanadooda dadka lagu dhibaateeyay haddii Somaliland ay ka go'an tahay masaafurinta guud ahaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya Hargeysa maxay tahay sababta looga bilaabi waayay daawade waa su'aal aad isweydiinaysid reer Sool dhulbahantu miisan wax fahmin mise warka lagu xanto ee ah inuusan mabda mise qadiyad toona lahayn ayaa sax ah waxa aan isweydiiyay haddii Somaliland ay hesho aqoonsiga raadintiisa ay ku wareertay ee la yiraahdo kuwa koonfurta jooga hal la tarxiilo maxaa dhici lahaa Somaliland dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi ee jooga koonfurta Soomaaliya waa dadka ugu fursadaha badan dhanka shaqada waa dhalinta ugu badan ee ka shaqeyso maqaayadaha hoteelada iyo xarumaha dawladda haddii la tarxiilo tuuladoodina loo celiyo talow maxaa dhici kara dhalinyarada Somaliland ka soo jeeda markii ay waxbarashada soo dhameystaan koonfurta Soomaaliya waa halka ay soo igsadaan inay tagaan si ay shaqo ugu helaan maxaa yeelay Somaliland kama jirto fursado ah oo dhalinta kaafin karta sheekadan sooma moodid ama u muuqato in ceebtiisa ay banaanka taalo oo ceebaha dadka kala raadinayo ictiraaf laan dadkiisa ayaa koonfurta iyo Muqdisho ku dayacdareysan oo lala tacaalaya fursadana la siinayaa halka ayagana ay masaakiinta deegaanadaasi ku nool ay ula dhaqmayaan si bini'aadnimo ka baxsan ilaan ceeb looma dhinto taliska uu hogaamiyay al-mujaahid handaraab ee Somaliland wadadii saxda ahayd ee ictiraafka miyuu ku riday mise buurtii daala ayuu ka tuuray